saddex maalin kadib waxa lagu dhawaaqay shir jigjiga ah gudiga Fulintana ku soo biireen 6 nin oo cusub ragga ka baxayna uu ku jiro Cabdirasaaq Saxane uu ku jira ragga ka baxay saa ku ogaada gudiga Fulinta rag badanna way soo galeen inkasta oo wararkii ay qoraal wali la soo gudbinin haddana inaan idin la wadaago sida la soo tabiyay macnaha warkana inta ma garanaysaa xaqiiqooyinka wararka la soo gudbiyo waxa wanaagsan inta xaqiiqada inaad qaadataan iyo macquul galka inta kalena aad halka kaga tagtaan waxaan waa warbaahin waa Facebook waa live waxa wanaagsan warbixinaha xaqiiqada ana aqligu galay inaad qaadato warbixinta la soo gudbiyo inaad iska turtaan taas ay idin la wanaagsan wax walba inuu idin ka dhaadhicin ta kala media propaganda lagu wada jira nin la lahaa Soomaali weeyo oo shashabana intii geel lagu xiray la qotomiyay suuqa bartankiisa oo la yiri waa Soomaali ninka waa xabash waa amxaaro qabiilka amxaarada iyo oromada iyo xuduudaas uu Tigray isku diray sidoo inaga isku kandiray si lamid ah ninkaana waa amxaaro taagashada warbaahinta Itoobiya oo dhan baa qoraysa Soomaaliya baraha bulshada waxa lagu hayo ka fiirsada hana la ordina colaada dhaxdiina taalana hal yaan laga dhigin colaad ma garanaysaa ka dhaxaysa colaad way dhacdaa Soomaali dhaxdeeda boqolaal iska dishay kumaankum iska dishay xuduud wala isku diraa maanta Tigray ka waran hadan xuduud yeelan lahayn inta talada hay hadan Tigray xuduud yeelan lahayn ka waran inta gobol buu qaadan lahayn inta dhul buu qaadan lahaa inagoo kala daadsan Ilaahay waa kan Tigray maanta xuduudna laga dhigin taasan Ilaahay ugu mahadiyaa maanta hadii aan Tigray xuduud lahayn cadowtinimada ugu dareed baan u qabi lahayn fikir siyaasadeed iyo maskax buu nagu dilay hadda fikir xuduudeed hadii aan la mid ahaan lahaa dhul iyo hanti iyo dadba iyo dalba uu qaadan lahaa horta taa xaqiiqsada maanta horta Soomaaliinta iska dileen iyo Oromadu waa wax isku dir Soomaali Oromo la dhax dhigay oo TPLF dhax dhigay weey taasna waa dad xuduud iyo dhaqan iyo diin iyo diris wax walba naga dhaxeeyo maanta markii Soomaali wax ka baxsan la soo hadal qaado Soomaali oo dhan baa isgarabsan Soomaali dhaxdeed markay sheestana sidii waraabihi bay isku cuntaan laakiin waxaad ogaataan canfar iyo Oromo iyo Soomaali inay meel kala aadeen oo dad diris aan nahay taas ogaada warar biximadii dadkii gudiga ma garanaysaa horta taasaan meel dhigo xagga nabadgeliyada ah iyo isku duubnida Soomaaliya ay horta reer Yurub dagaalkii labaad adduunka wixii ka dhacay maanta xuduudahooda isku furan waa la socotaan war Afrika mid la mid